فيلم كان واحد لغو ترجمي أستان فيلمس مقدشو سيادة بحال ميد مسور تقريسو تاسو لبلي بح قفا هويدا إن ما في ملك كحنوسنا ماي أنا وحن مقلي جريدا إني دحلتها متى سيا مقلي qofka xanuunka duu qoran wuu marayaa hadda hooyada balfiiri waxay ku nooshahay waa xasuusta aabahayga aniga waan kula kaftamaayay waxaa macquula arrintan qof kale inay qosayso hadda aniga shaqaalaha ayaan buriyey micnihii kalkaalisada hooyada ay walwaalaysay taasna ma dhaxal baa ii sheeg waxaa laga yaabaa qof kale inay sabab u noqoto midaas waxaa laga yaabaa xanuunka hooyada inuu qof sabab u yahay aabbaha ama sabab u yahana waa inaan iska ilowna xasuustaasoo dhan xasuusta maaha wax fiican kadib markuu dhintay aabahayga ilaa hadda aan qalbigayga ku hayaa hooyadeedii xasuusteedna iyadoo keliya isku soo koobtay sideed ku ogaatay adiga waxay isku dayday inay marxaladda bannaanka soo ogaato balse hadda gurigan ay isku soo koobtay inay baxdo bangiga lacag kama soo baxsan karto anigana waxay u malaynaysaa qof xun noqonayo markii ay maskaxda sidaa noqotona wax walba si qaldan ayay u aragtaa anaga waxaan ku noolaan jirnay Amerika xaaladdan oo kale markaan ku arkana kalkaalis ayaa iimaan jirtay farxadda hooyadeeda intay ka maqan tahay muddo waxaa ka soo wareegtay 3 sano ah kadib telefoonka dhanka hooyada iga soo dhacay Halo. Jansur, wilkay kuwaas way ku dilayaan.
yaa waay wiilkaygu waa baadileen waay way ku dilayaan adigana wiilkayga iyay ku dilin nimankaas hooyo aabbaha wadna xanuun uma dhiman miya asaga haa waa markii ugu horreysay hooyadii ay waxyaabahaas ii sheegto waxay go'aan ku gaartay aniga inay meesha iga soo dirto wasaqayntaanayta aniga maba celin kariba meel baasa ka baxaana wiilkayga waa ku baryaaya meeshaan iskaga tag waa lagu dilayaa haddii kaleeto kuwii aabbaha dila ayaa ku dilaya marka waa ku baryaa bax waa ku baryaa marka hore adi isdeji aniga wax ima gaaraayo adiga walwalka iska daa hooyo aniga kula joogaayo hooyo maya wiilkayga aniga waxaan ka baqaa nimanka aabbaha dila adigana inay ku dilaan waan ku baryaa meeshaan iskaga tag wiilkayga warkayga ma qabo hooyo adiga soo ima dhihin laakiin aabba wadnaha ayaa istaagay hadda maxay tahay waxa ku hadlaysa hooyo jeensuur aabbaha taxsiin kortaag ayaa dilay ma fahantay kadib adiga meeshaas ma ka soo tagtay sheekadaaba maalintaas ayay bilaabatay kadib sheekada ma ku dhammaystirtay maalintaas ilaa haddeer sheekada hooyadeeda aniga weli imaysan dhammaystirin koritaag adigu waxaad u imaatay dilka aabbaha inaad baartid maalintii aniga rafiiq aan shoorin waad dhegaysanay soo maahan waxaan ku dhahay weli ima aadan baran ee waxaan ku dhihi lahaa si fiican ii baro runtii hadalkaaga ilin ayuu iga keenay waan ogahay aabbahay mas-uuliyad weyn inuu dusha kaa saaray qisadan hadda ii sheegaysid habeenkii dhacaysay nin xasan la dhahaya ayaa shil galay laakiin arrinta way kala duwan tahay baaritaanka kuma jira calandar oglow qofka dilkaas geystana habeenkaas waa la soo qabtay xabsiga ayuuna ku jiraa daal ayaa kaa muuqdo laakiin arrintan waa arrin weyn baaritaankan waan wadaa sidaan wax walba ku ogaan lahay haye go'aanka ka soo baxay go'aanka ka soo baxay ma aqaan qofka beddeshay laakiin waxaan la yaabanahay aabbay sababtoo meeshuu tegey meel qaldan ayaa jawaab ka raadinaysaa adiga maa sidaas i dhahaayo fiiri aniga aabbahayga xaggiisa garab makuugu siin kari waayo dilaa ma ahna aabbahay wax dembina ma laha sideen garab kugu siinaa waaye arrinta meeshaas noogu xir adiga ma waxay kula tahay arrintan markaad ishii si sahal inaan kugu aaminayo sohan adiga inaan kula dagaalo diyaar uma ihi inda caashaqo gacalooyayo ilmasayiraya ragarabe dagawdano fariisano aniga waan sii baxayaa habeen wanaagsan haddii wax kuu dhammayeyna beri ayaad ii dhammaystiraysaa dagawdano fariisano kuwabarsanba erika
urursan tahay urkiya wadnaa unugyada jirkiyo idilkood xubnuhu way ku eegayaan abbaayo walaalid macaanay way ku eegayaan way ku eegayaan urkiya wadnaa unugyada jirkiyo idilkood xubnuhu way ku eegayaan abbaayo walaalid macaanay way ku eegayaan way ku eegayaan soohaan aabbo waa ku salaamay. waxaan u malaynayaa markaad aragto inaad xanaaqayso adiga aniga aad ayaan u daalanahay nolol fiican haddaa rabtid aabba inaad ku noolaatid halkan waa inaad iskaga tagtaa adiga oo diyaarad ka raacdaa. qorsheyga waa ii dhammaystiran yahay gabagabayntiisa oo keliya ii dhiman see tihiinne adiga soo ma xanuunsaneen? waa fiicana hadda aniga habaryar adiga waad xanuunsantaa ma fiicnid iska naso. sida anigoo kale inaad nasataa loo baahan yahay seeta adiga ayada jaahid martideeda waaye waaw nuurka gurigaaga jooga xagguu ka yimid ayaan islahaa maanta o dhan aniga magacayga Caaisha ayaa la naaga uur kale ayaan wax bara aniga oo barasho wanaagsan. wanaagsan barashada laakiin waan igaga soo daayidika istakfurlaa dheh nagalama soo daahin barashadaada waan ka helay caloosheedu waxay la buurinta caanliidada ayaan badsada aniga aniga ma jecel qof bilaadan inaan murjiyo aniga mudan raashinkaaga sariirta agteeda ayaan kuu dhiga aniga waxa u baahantaa diyaar oo waqti walba garabkaaga ayaan taagan anaga aad ayaa u mahadsantaa adiga haweenkani wacnaado sidoo kale jaysuur wuxuu rabaa kulanka shirkadda intuusa tegin ka hor inuu kula kulmo adiga. lacag miyaa iga soo gelaysana aniga ii sheeg haa aabow lacag ayaa naga soo gelayso caalamkaba middaas kama dhicin adiga inaan jiiftaa iiga roon aabow aabbo qolka ayaan galay aniga waxaan raadinaya wax qadiimi ah waxaana ogaaday beerta awoogay hore inuu leeyahay hooyaday aabeed. haye hooyaday lacag darteed ma u guursatay aabba ii sheeg adiga. meherbaan sidaas ayay nikaaxeeda uga carartay. maxaad ku hadlaysaa adiga meherbaan miyaa waxaan o dhan kuu sheegtay maya aabbo anigaa go'aansaday inaan adiga arrintaas ku weydiiyo. adiga walaalkaa idiinma begin maalmahan weji aan igu soconayn ayaad wadiin waa maxay maalaayacniga aad igula hadlaysaan nolosha hooyaday maxay ahayd aabbo? maxay tahay nolosha aad ka hadlaysid aniga waxaan rabaa inaan ogaado wax walboo dhacay hooyaday adiga mar walba isku qayli jirteen dhexdiina khilaaf weyn ayaa yaalay. aniga sheekadaas waan duugo waana sidaa u duugaan ku dhahay arrimahaasoo kale maahan aabbo waxaan indhaha ka qabsan karno. su'aalahan tirada badan leh xaggee ka keentayna adiga sooma wanaagsanid caafimaadkaaga sooma fiicna caawa sheeko macaan ayaa laiiga soo sheekeeyey jaysuur hooyadiis waxay ku nooshahay jaceylkeedii hore aysan marnaba iloobin aabbo. hooyaday nolol ma haysan farxadda dhanna waxay weysay caadle markay noloshaada ku soo biirtaa iyada wayna dhimatay.
fiiri jaysuur hooyadiisa waa qof jiran warkeedana qaadasho ma laha ayaan ku dhahay hooyaday waxay ahayd bes igu filan ayaan ku dhahay habeenka ha kuu wacnaada ayaan ku dhahay ma ku diri jacayl wali ma ku yidhi qof daba soco ma ku diri jacayl wali ma ku yidhi qof daba soco duufaano dhacayo dabaylaa habeenkii kamiyadayooda dabaylaa habeenkii kamiyadayooda midare u tayo ila talbate midare u tayo ila talbate don istisay dadku kula yaaba dawmiyad ka dhigata misadaranta geedka dibnahaana gelino naftu kulama toogo inuu darayay mahdaragee dushuun aku dushumada ka maqashay dhulkan cabirkiisa waa meeqa 15 ilaa 10 ها dhulka aad u fiican yahay dhulka baaxadiis aad u weyn yahay okay مع السلامة مع السلامة اوكي قول ايدي رجينا يا sidoo kale adigana waa mahadsantahay ma ku dagi jacayl wali ma ku yidhi dibnahayo ma ku dagi jacayl wali ma ku yidhi dibnahayo afkayo daabalo dhigtu waxaanay doonayaan waa inaad diidaa dhigtu waxaanay doonayaan waa inaad diidaa sidee tahay waan fiicanahay adiga weli arrintii kuma guulaysan miya run ahaantii aniga dhulkaas dad badan ayaan tusiyey laakiin wax lama filaan ayaan idiin hayaa aabbee dadkoo dhan ayuu ka soo horjeedaa asaga soo ma wada hadlayna laakiin ha ka hortegin ayaan ku dhihi lahay dadka markii ay shirka yihiin maahan inay iska soo horjeestaan wax walba xal ayaa loo heli doonaa ilaa hadda maamulka shirkadda Poland ayaa gacanta ku haya anigana cid igu kalsoon ma lahan dadka xaggoodana wax qiimaha kama lihi aabbee ma ka soo horjeesanaysaa hal wadda haddii aan ku socono kama hor imaanayo adigii walaasha arrintiin intay nii maraysaa anii walaashay su'aal miyaa ku weydiisay aabayda baryahan waxaan arkayaa carab dheeri saa'ida inay keenaysa iyada wax walba cad ayaa u sababay aabbo iyada ayaa madax ka cunaysa aabbo maya qof ayaa wax u soo sheegaya iyada yaa waay qofkaas ma aqaano wax qadiimi ah ayaa mar walba loo soo sheegaya anigu u soo sheeg qaadaysaa anigana ma raba inaan ka hadlo arrintaas aabba adiga midaas miyaad aaminsan tahay ii sheeg balan ku weydiiyey aad baan uga xumahay aniga
qofkaasna ma ahan qof naga dheer haddii uu naga dheer yahay annaga waan dareemi lahayn qofka uu yahay waaye adiga markay su-aasha ku weydiisay maxaad uga jawaabaysa aabadaadan been sheegaynin hadda ayaan fahmay labadiina waad heshiiseen soo maahan maxaad ku heshiiseen aab waxaan ku heshiino ma jirto sohaanna way fahantay adiga wax famil ah in aadan lahayn aabbo aab sigbal hoo baalka neefta waa isticmaal aabbo adiga maxaa ku did inaad runta sheegtid waa ku baryaa dadka hortooda istaag ee runta caddeey aabbo yaa ku dhahay waryaa yaa ku dhahay adiga iyo walaasha ayuu wax idinka qariyay aabbi isiida ayaan ku dhahay adiga runta ayaad qarinaysa aniga waan la socdaa runta ayaan kuu sheegaya aabba aniga iyo walaasha dib waxna soo gaaraa waxaad ogaataa xasan kaara xasan dhogar arrintiisa in aan sheegaayo dadkoodii laaba baay jaayidii ninkeeda waxay rabaan gooni in wax loogu geeyo duqa wuxuu rabaa gooni in wax loogu geeyo gabadha waxay rabtaa gooni in wax loogu geeyo anigaa hal meel ka dhigaayo aad ayaan u yaabanaa aniga jaa-idda baanta aabbee sida oo ila hadla haddii aad aragtid weligiis ilama hadlin aniga waxaan la yaabanahay arrintan cidda ka dambayso aniga waxaan keliya u baahanahay cidda arrintan ka dambaysa in aan ogaado bes intaas ayaan rabaa sababtoo ah haddii aan isku dayo in aan wax qabsado aniga keligay jaa-idda wax ma qabsan kari macaan adig fiire waad ogtahay aabbaha inuu iska dhib badan yahay laakiin sidaasay taadiyo cunugaaga aad ayuu idiin jecel yahay xabiibti adiga jecel ayaad leedahay jecel xaguu yaalaa ii sheeg bal haddii si loo fiiriyo adiga ayaa ka fiican dhaaraabay haddii la dhao dhanka isbiiridka waad ka isbiirad badan tahay adiga xanaaqaaga aad ayuu u kulul yahay dhan walbana waad uga fiican tahay asaga bas waxaa laga yaabaa qof kale oo adiga kaaga fiican in uu asaga helay adiga runtii been ayaad ii sheegaysaa korhaan aniga ma been kuu sheegaya ilaahay kaa cafiye yaaqe fiiri ila hadal horta kaale fiiri adiga waxaa tahay wiilkayga dafar aabihiis ma maqashayna fiiri tan soo mucjiso maahane waad og tahay aabbaa wuxuu yidhi qofkii cunug dhala ayaa hantidaan leh marka adiga maxaad isku murjinaysaa waad og tahay aabba wuxuu dhahay qofkii ugu horreyn cunug dhalo ayaa hantida iska leh mar way iga raali noqo adiga wax uura ma qaadi kartid